Howlgalkan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa burburinta goobo dadweynaha maleeshiyaad hubeysan lacago baad ay kaga qaadi jireen shacabka ku safra wadooyinka mara deegaanada Xaaji Cali, Cadow Uul iyo Bashaqle oo dhammaantood hoostaga degmooyinka Warshiiq, Raagacele iyo Cadalle. Waxaan hogaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan, taliyaha guutada afraad qaybta 27aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed Korneel Sani Cabdulle iyo taliyaha booliiska Hirshabelle Korneel Xasan Dhiciso Xasan. Inta howlgalku uu socday ayaa ciidamadu waxa ay qaadeen isbaarooyin dadka musaafirka lagu dhibaateyn jiray. Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Warshiiq ayaa sheegay in mar kale aysan soo noqon doonin lacagaha baadka ee laga qaado gaadiidka ay isticmaalaan shacabka isaga kala goosha degmooyinka aynu soo sheegnay iyo caasimadda dalka ee Muqdisho. maanta iyo shalay iyo daraad waxaan ku jirnay howlgal lagu nadiifinayo saddexda degmo oo gobolka Shabeellada Dhexe xeebta ku taalo. sidaad ogtihiin deegaanadan waxaa ku badatay wax badan tuugo iyo maxuu ahaay niman jidka ku soo boodo. marka Ilaahay mahadiis waaye waxa uu ahaay howlgal wada jira oo degmooyinka iyo maamulka gobolka iyo militariga iyo booliiska Hirshabelle ay maxuu ahaay ka wada qayb galeen. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay in shacabka oo xilligan la daalaa dhacaya abaaraha ka jira dalka looga daro lacago aysan awoodin handadaadna looga qaado. sidaa darteed marka waxaan u soo baxnay in waxyaabahaas wadada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno. alxamdulillah si wanaagsan ay noogu soo dhamaatay. xalay waxaan joognay iyo habeen hore Cadalle, maantana waxaan marahoynaa maartay Raagacele oo ugu dambeysay maartay soo gabagabeynay. marka alxamdulillah Ilaahay mahadiis waaye waxaan rajeeynaa in ciidamada militariga dhammaan maartay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaahayso dadka jidka joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyay dadka safarka in ay maartay si taxadir leh iyo si maartay aad iyo aad u feejigan ay dadka maartay uga hortagaan. wadanka dhibaato badan ayaa ka jirto shacabka ayagoo dhibaatooyin badan la daala dhacayo oo ay kamid yihiin maartay nimankii nabadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaateeyayo. dadkii kale sida kale dhibaato ay u hayso abaaro ay jiraan oo 3 fasalba oo roobka u maartay iska yaraaday. dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ay ahay maadaama mujtamaci dhibaatadaas ay hayso annaga meelihii dawladda iyo maamulka joogay inay dadkii dhibaato kula sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso. waxaan rabnaa inay gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maartay militariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyay inay sidaas isaga xil saaraan hawshaasna ay u adkeeyaan wixii ayaga ka batan hadduu Ilaahay yiraahdo in kaalmo ay u helayaan oo anaga garbahooda taagan. laakiin waxaan rajaynaynaa inay maartay arinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaateeyahay dadka inay gacan adag ay ku qabtaan. dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowt hadii qofku ay dhibaato meesha inta u sameeyo ciidamada inta howlgal sameeyaan howlgalkii ay qof wax ku gaaraan qofaa dhibaato laga gaarsiiyay ama qofaa meeshaas laga dilay qofka dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ka cesho wadada cunugeedana uu gacanta ka qabsado. hadduu gacanta ka qabsan waayo maamulka degmooyinka iyo ciidamada inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shacabka wadada marayo ayay maartay amar u qabaan. cid allaale cidii uga hortimaado oo meeshaas ay maartay dhibaatadaas ay dhibaato kala kulmaan anaga waxaan diyaar u nahay inaan gacan adag ku qabanno. gacantaas adagna cidii ay maartay dhibaato ku gaarto oo ka tirsan dadka meesha galay ama tuugada meesha soo galay ciday wax ku gaaraan hadhowto qofaa meeshaas nolol kaga dilay iyo saanay ahayd iyo intay ahayd looma baahan. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.